hormuud iyo somtel waa shirkado soomaaliyeed oo canshuur bixiyaal ah waxaa laga yaabaa bishaan tanna canshuurta ay bixiyeen in muxuu ahay dowladda iyo xukuumadda federaalka maaliyadda ay ku shaqaysay inay ka mid tahay waxaan weydiiyey guddoomiyaha guddiga isgaarsiinta cabashadan baarlamaanka xaggee ka soo gashay shirkadihii ayaa keensaday ma aha mid xukuumaddii ay noo keentay xukuumadda marka ayada xaggay saaran tahay mar haddii canshuurta ay qaadanayso oo ayna matalaynin muwaadiniinta soomaaliyeed dhibaatada la gaarsiiyey ayna matalayn xukuumadda xaggay jirtaa iyado xaggay jirtaa annaga waxaan nahay fulin ma nihin hay-addii fulinta wadankii oo lagu soo duulay oo ama amisom ha ku duusho ama ha ku duusho ciidamo kenya ha ku duulaane dalkii oo laleeyahay xaduudidiisiyaa la soo galay ee ayna noo soo gudbin ayadoo ka cilaaqtimaysana aanan la arag xukuumaddaas maashay maxay tahay idii sheeg maxay waxa aan rabnaa waxa weeye in riyaalatan u xisaabtano in xukuumadda lala xisaabtamo in la saxo qaladkeeda la tuso dalka wuxuu leeyahay xeer ilaalinta intay qoraal ka sameeyeen dacwad ay ka diyaariyeen maanta halbeeg nooma aha in muxuu ahay dacwadaas ay noo socoto oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu dili ee hantidooda la baabi'iyey tixraacan ugu dhigayno oo aan leenahay dacwaa socota xukuumaddeena iyo xeer ilaalinteena iyo wixii iyo ciidankeena iyo wixii aa ku shaqo leh ma la dhihi raa baarlamaankaana la keenay waxaana keenay shirkadihiyaa keenay hormuud iyo shirkadihii kaloo dhibaatada loo keenay qoraal soo qotay war xildhibaanadoo idinkaana matala waayo xukuumadda maxay intaa ugu jiifatay miyaanan xaq u lahayn haddii annaga ay shacabkii iyo hay-adihii shirkadihii ay nala xisaabtameen annaga inaan xukuumadda la xisaabtano oo aan soo geed fadhiisino miyaanan xaq u lahayn xildhibaan arrintan arrin aad iyo aad muhiim u waaye ciidanka kenya kan jooga jubbaland joogane waa ciidan kenyaati ah kan la leeyahay waa ay soo galeenna waa ciidan kenyaati ah inay iscelinaynin oo danahooda ay muxuu ahay iska hor istaagaynin waa waxad waxaa la rabaa waxaa weeye waxaan doonaynaa totaalminta ciidamada kenya mar haddii gaboodsolka intaas la eg ay yimaadeen ciidamada kenya tilaabada ugu horeyso oo xukuumadda ay qaadayso ayadoo u marayso maadhaydka iyo sharciyadda amisom u marayso waa guud ahaanba in dalka laga saaraa waa in laga saaraa dalka 100 mar ayaa xadgudubii ay dhaceen waxaa la leeyahay waa ciidan soo galay iyo ciidankii joogay ee amisom ma la kala garanayo mar haddii dalkaas cilaaqtan intaas la eg uu nagu hayo dalkiisa inuu ciidankiisa inuu sii joogo dalkeena sharci ma noqonayso annagoo marayna kanaalada caalamiga iyo sharciyada caalamiga marayna waa in ciidankaas laga saaraa dalkeena arrinta muxuu ahay hormuud iyo somtel muxuu ahay lagu burburiyey waa arrin ganacsi safari ayaa la rabaa in Kismaayo laga dhageysto oo lagala hadlo